waxaan rajaynaynaa sidoo kale Sheekh Cabdisalaam inuu noo soo noqdaan rajaynaynaa wadaadada kalena waa la balamiyay kulay sabti kasta sidaan isugu imaan jirnay sanad kasta isugu imaanaynaa awka quraan noogu furi doona أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين لا رب سواه ولا إله غيره وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا ليال وحندكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii Resvola magaalada Resvola la yiraahdo isku xirnaashadiina iyo mar walba sanad walba culimada amarti qaadaan isa isku xirantihiin run ahaantii wax lagu farxo ilaahay baa mahad iska leh soo gaarsiiyay waqtiga waxaad u malaysaa inuu isku ordaay shalay baa markaan imanayna maantana waa kana Ramadaan kala yimid marka waxa way umrigana saas u ordaay ilaahay umrigeena Allah barakeeyo waxa way alxamdulillah nimco weyn buu ilaahay soo gaarsiiyay bishii Ramadaan dad baana ilaahay waafaqsan u soo gaarsiinin ilaahay inuu soo gaarsiiyay waxay nooga baahan tahay ma taqaana ilaahay subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal waxay nooga baahan tahay in aan ku shukrino لأن إلهي وحوليه لعلكم تشكرون سياد إلهي أقوم هاد نقدين لعلكم تشكرون بو إلهي ليه سبحانه وتعالى مقصود كالصون كأنا وقفك إنه عبسي إلهي سبحانه وتعالى أكرر وإلهي سبحانه وتعالى صون كأسوما نفتي سو صوت ضعيف يسو قاجدا ودريما إني عبسي إلهي سبحانه وتعالى أكرر لعلكم تتقون بوليه مركو إلهي كسو هذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعبسي إلهي وحو سبحانه وتعالى كتاب كيسا سيدو أصوب بالله إلا كتابك أنت أقدم بيس إلهي عبسيدو مرة والبكوع العلنا إلهي إنك عبسنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ها صومك مركو كهد لا لعلكم تتقون بوير مؤمنين تدن إلهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بوير حق تقاته إلهي كوض عبسنا إلهي دردارا كي أمضيه هرئي أمضيه دندنبنا وحو أغلى دردارمي وعبسنا إلهي سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كوين idinka horeeyay kuwa idinka dambeeyaba cabsida ilaahay buu ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dardaarmay marka maqsuudka ugu weyn oo soonka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ugu bishaareeyay waa cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan oo soonkan ilaahay ku soo dhaweeyo bil barakaysan buu ilaahay soo gaarsiiyay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii sooma kulligeen ilaahay inuu naga wada dhigo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala naga aqbalo soonkeena iyo cibaadadeena iyo taacadeena iyo khayrkeena aan u soo degdegayno ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga wada aqbalo annaga iyo ubadkeena iyo intaan jecelnahay iyo inta mu'miniinta oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga wada aqbalo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay xadiis qudusi ah كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إلهي وحو ليه سبحانه وتعالى عمل والبئ وابن آدم كسمايو أسقى إسكاله إلا صوم كمؤيه أنيقى إسكاله بإلهي ليه سبحانه وتعالى حديث قدسي قاس لكن وحان أقنهي فردقان هذا فردنا وعباده وخير بان رقيسانينا وأجر بان نو سعودو أما كوا ميديها قدالي قد رقيسان دونو
ama kuwa ma aragtay hadda dhageysanayo khayr baa noo wada socdo iyo ajir aan kala go'ayn insha allahu tabaaraka wa tacaala khayrkaas iyo camalkaas ilaaha iska leh soonkaad sooman tahay ilaahay horta wuxuu yidhi anaaba kaa iska leh horta kaas iska dhig meel waan u iman doonaa xajka ilaaha iska leh cumrada ilaaha iska leh sadaqada ilaaha iska leh camal walba horta ilaaha iska leh laakiin wuxuu yidhi bini aadamow adaa iska leh acmaashaas marka maxay tahay see iskugu keeni kartaa acmaashii dhanna ilaahay uu iska leeyahay soonkana ilaahay yani ilaahay gaar buu iskaga dhigay subxaanahu wa tacaala caza wajal culimmada waxay dhaheen raxmatullahi tabaaraka wa tacaala calayhim camal walba ibni aadamka waa laga yaabaa inay dadku arkaan laakiin maanta aniga inaan soomanahay iyo inaan afuranahay yaa garan karo ya allah tabaaraka wa tacaala ilaaha garan karo laakiin haddii aan xajka aadayo soo dharkii cadcadda haddaan gashto dadku maxay leeyihin intuu u socdaa ma wuxuu u socdaa yani ya fakaasi u socdaa ya yani qofkaas wuxuu soo ciyaaraya mataqaana ya maya yani qofkaas wuxuu u socdaa xajkii dadkii baa arkayo nin baa la soo baxay qof maskiinu lacag siiyey maxay tahay lacagtaas waa sadaqo صدقة ويذاتك ويقعد إن صدقة تاي لكن إنا صومنتها إلهي بأقسمها ولذلك إلهي وحيري كل عمل ابن آدم له إلا الصوم صوم كأنا إسكاله لأنه وحال يرى الصوم كوا عمل ككلية ونقفك جاس كجري كريم ما أنت كم جاس كرت صوم بالعكس قاعدك كود لا ماشى إسكفر النساب لكن ما بكون جاس كرت لك وعلى إلهي اللي معك له هدوك سيء إن جاس إن أسكت استدتك إكتماده أما عبادك لحجك هذا سلا الله لك وجيجستو أما مثلا إلهي ورت إخلاص كل جن الله نسيه لكن صونك وهو إلهي جار وعجيب يا إلهي جار وعجيب أول ذلك إلهي وحليه هي وأنا أجزي به أنا جاء بعضون كيجاس مركو صوم أنا أو أبا المرنا يوري إلهي سبحانه وتعالى إلهي صون كيجي صون كين الله أقبله ولا ليال صونك ومدرسة عظيمة قفك مركي جاجة قبته وحضري ما يا تذكي مساكين تأها باهدة أي قبتي إلا نجاجة قبتي الله وردتك باهنا متي قبتي وحين قرن إنه ضدك وحسيه وحضري ما قفك وحالي لشهوة وصونك جبيها وقفك يعني على إنه حكوا فكرين بس ربطوا شهوتي بقى جبيسو شياطينتي بقى الحري أبوابتي جنة ولا فري سيدو النبي الناشق عليه الصلاة والسلام الباب دي جنة ولا فري والباب دي نار تنواهي ولا حري ما تقانا شياطينتي مردد هي أنت أنا كوا وين جفجف ولا جفجف إيه أنا ما إيمانا بشهر رمضان هو حد أركي سادتك رمضان إني عبادتي لو سوق قفك مساعدك إيمانا يذكو أركي جرنا أركي سيد صابتوا شياطينتي بقى الحري وحي كم مشغولين لها إلهي بقى لقى حري قفك وحاوي وحوي ما دم مساجد بأسوا عرّي خيرك صونك وبالبركة يسون ولا ليال صونك قفك مؤمنك وحلقة دونيا إنه إشي سحف ديو إنه لقيه سحف ديو صونك ليه ما هنا عبتانك يا سامبوسك يا تمرت يا معشروقة يا متقانا ترتيب ترى كسو منتهي معها صونك وإناد إشي كسونتد أين وحرانا كل عين دكتي وإناد كسونتد وحرانا هذا كل جيسن متقانا هدي الله كورين جعنتي أنا وحرانا كسمين لقتي أد كسونتد مال حرانا هذا كنت تجن جارجي متقانا أد ودتي خيرك أكو استعماشد وحول بإلهي وكسين معول بإلهي حقي سئنا ذو استعماشد قف كمركو صومية هدو دم بكرعه وحاول صونك أجر كيسيبوا دمية وأفرنا هدون لا إيمان يعني بقول كي وبقول هدو قاضن لها وقاضن لها بقول كي بكونتن بقول كي أفرتك كلما إكاد على معصية كلما إكاد على ذنبي أجر كي صونك مع هوس وسيت جابك وحكى يا صونك إن هذا كقاعد تتبع أجر الآن بإنك كجب حذو كهشت كلية هراد إيون يجاج كلية وكودلو marka soonka kuwa haraad iyo oon gaajo ku dil ilaahay naga madhigay rabbul alamin kaliya kuwa ajir ka qaato oo ilaahay rakal raali noqdo oo ilaahay soonkaas baabkii uu bixiyay ama ilbaabkii uu bixiyay baabur rayaan la yiraahdo oo dadka sooman ay ka gali doonaan inta ilaahay u cudur daaray oo afurana ilaahay subhanahu wa ta'ala waaba afursiiyay iyaga sababtoo ah ilaahay kama rabo oo mukallaf ma aha oo qofka waxa weey shariicada aayadii ilaahay soonka markuu soo hadlay wuxuu yiri yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra ilaahay wuxuu idin doonayaa fudayd ee culays inuu idin culaysayo looma sameyn shariicadeena iyo diinteena dhan oo iska fududahay waa diin meel walba anfacayso oo wax ayna ka soo horjeedsanayn aan jirin bi'ad walba ilaahay lagu caabudi karo meel walba oo tagtid maanta diinta islaamka ilaahay lagu caabudi karo subhanahu wa ta'ala wax ka manca meel walba aad ku tukanaysid oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay ju'lat liya al-ardu tahuran wa masjida dhulka dhan waxa laga dhigay ilaahay masaajid aad ku tukan kartid oo cibaadada ku gudan kartid nuur ala nuur marka waxa weeye bishaas barakaysan inaan kaga faa'iideysano taacada ilaahay inaan kaga faa'iideysano raximki inaan ku xiriirino inaynan ma aragto wax xaraana naga dhicin inay soonkan uu noo noqdo soonkii mataqaana ilaahay uu ka raali noqon lahaa bisha soon marka laga baxana qofkii uu isniin iyo khamiistii sidoo bil dhan buu soo soomay marka nin bil dhan soo soomay isniin iyo khamiis ma ku adkaanay marka ya iyo 13 iyo 14 iyo 14 iyo 15 bisha islaamka ma ku adkaanay inuu soomo iyo carafa inuu soomo ku adkaanayso ya iyo maalinta cashuura inuu soomo kuma adkaanayso cibaadooyinkii kala u fududaanay marka ilaahay soonka noo fududeeyo kulligeenba ajirna ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo xasanaat allah naga siiyo walaalayaal qofka waxyaalaha afuriya waxa kamid ah inuu midalan galmoodo xaaskiisa haduu la galmoodo qofka
oo mataqaanaa sooman waxa way soonkii uu ka burburay waxyaalaha soonka burburay ka mid tahay walidaalika nin baa nabiga sallallahu alayhi wasallam u yimid wuxuu yiri ya rasuul allah nabi ilaahayow waan baaba'ay ama waan halaagmay buu ku yiri waan halaagmay waan gablamay buu ku yiri oo maxaa kugu dhacay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ninkii baa wuxuu oran xaaskaygii baan ku dhacay anoo sooman balka soonka ka waran ya rasuul allah markaasuu nabiga u weydiiyay wuxuu ku yiri ma soomi kartaa buu yiri 2 bil maya hal qoor oo ma aragtay ma xoreyn kartaa qof ma xoreyn kartaa xor ma ka dhigi kartaa mayuu yiri 60 qof oo maskiin wax ma siin kartaa mayuu yiri nabiga uu iska aamusay marka laana wax kale oo mataqaanaa markii de qofka doon inta sameyn karin wax kale uu marka dhaho male almuhim nabiga asagoo iska fadhiyo ayaa waxa soo galay nabiga loo keenay timir baa loo keenay sadaqadii kamid ah masaajidkii la soo galiyay markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri aaway ninkii ma aragtay yiri waan hoogay waan gablamay xaaskayga ku dhacay dhahay aaway waa ikan buu yiri nabiga ilaahay meeshu iska fadhiyo zaawiyada waa kana nabiga ilaahay waa ikan buu yiri markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri timirtan qaado orado ku soo sadaqayso nabiga waa raxiim soo ma walaaliya raxmadiisa bal fiiriya hadda markuu cudur daar u waayay 60 ma soomi karo yiri ma taqaana 60 maalin ma soomi karo 60 maskiin wax ma siin karo hal qoor oo mu'min ma xoreyn karo qof ma soo xoreyn karo markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu aamusay timirtii la keenay bar timirta qaado oo soo sadaqayso oo sadaqaha ku noqotay markaasuu ninkii uu yaabo wuxuu yiri nabi ilaahayow madiina wax degan oo aniga faqiirsan ma jiriyaan ku sadaqaystaa buu yiri wax madiina degan oo dhan ana ugu faqiirsan guriga number 1 oo baahida ay ka jirtaba waa guriga igu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam uu qoslay alayhi salatu wassalaam aad buu qoslay alayhi salatu wassalaam wuxuu yiri timirta qaado oo waxaad u geysaa reerkaaga ordo soo siiso reerkaaga siiso yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka diinteena waxay ku tusaysaa walaalayaal inay diinu rahma tahay laqad jaakum rasuulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قفك وحو اسك إلى إنه مركا حاسكيس أوتقى بشر رمضان لأنه وكفس هذا يا صوم كيسي كذلك قفك هو بنانيه إنه حاسكيس دون كنكرو شريعتنا ندب ماله ضد كعب صدق وكلها هي مثلا أما ويسد إجا بس سؤالها سؤال والويديا هي متقانا ما حاسكا دون كنكرتا متقانا ماذا حوالت لكن قفك متقانا النبي وحوي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة مركي كشي كينيسي وحي سووا حج سنجري يعني قف هذا تهي أديك هدي أتحاس كتابة أي شهوة هذه كرت جيسو مركو حافي عن إنها التابل لكن إن إسكت جن هذا تهي حاس كجوات شو من كرتا وممكن كرتا ودمله في رمضان لكن وإسئلة لنا يسوى بالبركة إنسان شيطان كان يونكوسي دي بالمعركتي يونكوسي مشغولين طيب تاس وحوية ومد كذلك قفك مؤمن كأ إلهي أعذر داري يعني وحالي ويدي ما أنت سؤال بي هذا معناها بهاش لقاها دتك إلى الخيبة قار طبعا وإلرجي وهندساء أما اخترت كيف أسوق قريب هل ما تقانا جوجا أسنك لو سمينايو مركب جوجا ما استعمالي كراب ويري قفك مؤمن كأ طبعا قفك مؤمن كأ جوجا الله سوق قريب من دجها من دها هالنقطة واستعمالي كرا إنك استوى علماء قار إليه هو لو أفرا وحي ان سنك كجلو كرا لأنه ردم بين هذا هيكون جاري إلا دونت وقفك الدريمي كرا مركي ودوّد قاتو عليكم السلام ورحمة الله وقفك الدريمي كرا مركي ودوّد قاتو إلا دونت وتجيسو مركب حلو باهين هاي إنه وقادن كرا دودي لكن وحو إسكا إلالنا إنه تكتو إلا دونتي وقارت إن ير واستعمالي كرابي علماء الله رحمة الله عليه قفك بشهر رمضان كأوحانا لو يديا كذلك ديق مو بحسن كرا مثلا dad baa baahan marka dhiig buu rabaa inuu macnaha sadaqaysto dhiiggiisa ma sadaqaysan karaa maya dhiig badan hadduu yahay wuu ku afuraya qofka xalka xijaamadii iyo kale toobitaankii uu soo galaya marka toobitaankana waa lagu afuraa marka wuxuu iska ilaalinaya inuu dhiiggaas sadaqaysto laakiin dhakhtarka hadduu u tago uu yiraahdo dhakhtarka waxaa lagaga baahan yahay inaad dhiig iska soo qaadid macnaha cirbad iyo wax yar dhiig yar oo la baaritaan ah wuu iska qaadi karaa qofka sooman dhiig yar oo baaritaan ah wuu iska qaadi karaa dhib male wixii dhiig oo baaritaan ah dhakhtarka kuu diro wuu iska qaadi karaa qofka sooman وواحد يبقى إن شاء الله تبارك وتعالى مله كذلك دتك قار بالله ما هو يباجيان ودخترك إلكاه وكلا بشا ما آذان مركز دخترك إلكاه أنا قفك وآدي كرا إلجي جوسك هدي لجا سيبايو أما هدي لوجود رايو واحد يبقى مله لكن وحسك إلى لنا كلية ديجي يوحي إنه لقو أي معناها إلا دون تقطك تو إسكتوا فيا دخترك واتي كرا واحد يبقى تأ مله مركز دخترك إلكاه قفك واتي كرا هدي جوس لو بوحنايو هدي عرضك أو ما تقانا لوها بينايو هدي وحساس إيجرتو مركز واحد يبقى يدنا أوصون كاجا أو داوع وجارسين يسا مله wax daruura طبعا haday timaado walaalayaal waxyaalaha soonka ku burburo ayaa mataqaana kamid asaan soo sheegnay galmadii waxa kamid ah qofka inuu kas u cuno sambuus hor yaalo yani qofkii oo sooman haduu sambuus cuno waxa way ka warma soonkiisa ya ha soonkiisa waa ka jabaya soonka waa ka jabaya laana waa cunto akliga iyo shurbiga qofka waa inuu iska ilaaliyo kadalika qofka haduu dhaho wallahi maanta waqtiga waa dheer yahay ilaa 4 saac waay ma afurtaa mise ma afurtid niyadaas ka warama هذا ما أفر وحمعون لكن كلية اليد وحكير قلبك اليوم أنت ويدير تهاي
talow ma afurtaa mise waa iska daysaa niyaddaa bal ka warrama idinkaa idin weydiinaya niyaddaa soonkaa ma jiraa mise ma jiro waay ya qofka saa hadduu yidhi waxbana ma cuniya biyo ma cabi waxba taaban laakiin xoogaa qalbigu ka sheekaystay wuxuu yidhi ma afurtaa mise ma afurta niyaddu wax yar dhex galay ninkaa soonkiisa ma jiraa mise ma jiro صح إذا قفك هدول نيستو إنما الأعمال بالنيات ونيستي إن أفرتت مرة وحبنا معونين سداسي صونك ما أنت كجب وقلينا إلهي استغفار بدن والله إيمان يسا لأن النية وحاوي ركن بيكم التهاي أركانتي صونك يكم التهاي إذا النية ده هدي ما أنت قفك دير مثلا ندوق قفده كور السعودي ولا أفرها سعودي هذا لا أفر كور إيه الله صونية يا إيه صون لما صومن ما لا أفر كرا مايا وقت قاعد سوق يسا إلا عدم ما يسنيس إيه هدو كذا ماضي waqtigoodii uu dhamaaday ee afureen adiga waqtigaagii uu dheer yahay 3 saac kale ay ku hartay soonkaagii waxa weeye iyaga ajirkoodii halkaas ku dhamaaday adiga se uu ku sii socda qofku waa in wax walba saa u xisaabiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirka kama dayacay inna allaha la yudhi'u ajra almu'minin ilaahay ajirka mu'miniinta kama dayacay subhanahu wa ta'ala ajirkaagi waa ku socda soonkaagi waa ku xisaabsan yahay waqtiga dheer القدر وحيد الأجر على قدر المشقة كلما أي صون كدب قفك أوكينا مشقة كإيمان يسوء وهذا معنا ما أنت دير ساء وسوما يسوون طبعا عذر وما وح صونك أفرياء وجينين وسومي كرا وسوما لك وقت جينا وديري هاي أجر كي سنة أدب وبديه مرك أجر كاسو إلهي سبحانه وتعالى حقي سا كحساب سنة قفك مؤمن كوائنه سانسو شيغني إلى لي عنده سا لقيه سا حمانتك إلى لي خيرك ودك دقو يعني بش بركة يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بشاس يعني عائشة وحيت من حديث أبي هريرة وحوها إنه ما أردتي كالريح المرسلة سيدي ما أردت ضبيل خيرك وأردي سوكلوا بشاها النبي صلى الله عليه وسلم ضبيل دوفان أردي سو خيرك وكلا أيوها بشا بركة يسن نبي نصوبناها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشاس وان ذالينا وحنا كود ذالينا صونك وحنا كود ذالينا إن الإله سبحانه وتعالى كعب سنو إن استجعلانه إن اسكحرنانه إن أمضنا قلنا ضدك يكدم بيان إن نقلنا ضد ما شاء الله تبارك الله ما أنت قلنا قنكر ضدك قدوة وقلنا قنكر تسالو وقلنا قنكر إن شاء الله تبارك وتعالى إله النجارسيو سبحانه وتعالى وعز وجل ولا للكلمة دي أنا أنت سأكوسو جبجبينيا وقت جمرك سؤالها إن شاء الله تبارك وتعالى أن وقت جو عريري أوجد إن شاء الله تبارك وتعالى وحن إلهي كرجينا إنه إلهي صون كنا أقبله إنه إلهي أبد كنا بركيه إنه إلهي عرورته نو بركيه إنه إلهي وقت كنا بركيه إنه إلهي نجد كوي صومي سيدو نبي صومي إنه إلهي سبحانه وتعالى نجارسي رمضان وين بدن كوا صوم إلهي نجد إلهي نجو عافمات قبلنا جارسيو إلهي سبحانه وتعالى أنت أنا سومن إلهي أجرك وأقرأ إيجن إلهي أعافيه إلهي سبحانه وتعالى أشافيه إلهي وطن كيني صوماليا إلهي نوها جاجيو إلهي وطن كي قلوبته اسكو كينو إلهي سبحانه وتعالى وحي دبات وضع لبك إلهي وكقبته إلهي دتك دبات وضع إلهي سبحانه كقبته إلهي سبحانه وتعالى قلوبته دتك اسكو كينو إلهي سبحانه وتعالى هرمر إيه متقانا إسلام إيه إلهي سبحانه وتعالى أجارسيو إلهي دتك أسجع ليسيو إلهي سبحانه وتعالى وضن كي كربة بدن باكجرت كربة إلهي وكفي يا رب العالمين إلهي وكفي يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير sheekh aad u mahadsan yahay haday jiraan inta ka dhiman afurka wixii su'aal iyo aqoon isweydaarsi ah waa furanta waxaa la weydiinayay dalalka saacadoodu badan yihiin soonka oo dawladeeda oo Iceland la yiraahdo ay soo qabteen waxay dhaheen 22 saacadood bay soomaan iyo meelahan kale ee la midka iyagana ala kulli xaal waxaa la yidhi muftigii masar ee adduunku ka dambeeyey waxaa maaragtay ay jideeyeen in maka lala soomi karo markii maka ay afurtay inay la afuraan waa la weydiiyey waxaa la yidhi dee qoraxda casar dheer weeye see loo afuri waabanu jeednaa qoraxdii waxaa la yidhi hataa maqribku tukanayaa markuu afuro inta yar baan maartay xalayto maartay wadamada qaar waxa way habeenba ma la arko macnaha waa maalin mutasila sida Norway qayb kamid ah ma aqaan meelay ka tahay laakiin Norway ma bariba ma galbeed ba ma aqaan adu dhan bayna ka dhicin qoraxda way taagan tahay yani habeen dhan ma arkaan marka way jirtaa iyo wadamo saas la mid ah wadanka aan sheegto kale way jiraan laakiin culimada qaar waxay leeyihiin wadanka u dhow way la afuri karaan markaas laakiin Makka ma ah يعني ميل كفوق معها يعني وطن أودو إلى أفريقيا لكن أنا كم جرنا أنا وقت بالنا هاي تقويم بالنا هاي قفك وحكوية هي ملتزمة وقت جا قبل كأود عي أو سدا أنكو أفرنا هذا
inaan ku soonno oon ku afurno ama dadkaas iyaga insha allah culumay leeyihiin waxaa fiican wadan walbe culummada wadankaa joogto iyaga xaaladda og iyaga wax qiyaasi karo inay iyaga u iftoodaan yani maalan hadduu hadda maanta mashaakil ay ka dhacdo maalan wadan yani wadamada ka mid ah waxaa fiican culummada wadankaa joogta in loo tago guddi baa jiro inay ka hadlaan masaladaas iyaga xaaladii og waxay ku sugan yihiin yani hadda waxaa arkaysaa qof joogo intuu joogaa maalan yurub buu joogaa sheekh buu wacayaa soomaaliya jooga wuxuu leeyahay sheekhu waxaan rabaa guri inaan inta ka gato mataqaan wax inaan inta ka samaysto wax inaan ninka soomaaliya sheekh xagga jooga waa sheekh cilmi le ilaahay cilmi siiyey laakiin waxaa kaga yani aqoon badan ninka sheekha oo wadankan joogo systemkii iyo qaanuunkii iyo wax la socdo oo wax isku aadin karo ayaa kaga cilmi badan taas waxaan ula jeedaa macnaha ma ahan inuu qofka xagga jooga waxba aqoon wuu yaqaanaa laakiin wuxuu og yahay wixii xagga ka dhacay wuxuu og yahay xogaal u yahay wixii mataqaanaa fataawo oo xagga looga baahnaa oo wadankaas looga baahnaa buu og yahay oo qowm walbe waxay og yihiin dhulka mataqaana ahlu makka adraa bishacaabiha bay dhahaan ahlu makka iyaga yaqaana macnaha reer makka kama badinayna jirooyinkooda iyo meelaha la galgalay iyo way wada yaqaaniin kadalika culummo walba wadan walba iyagaa u iftoonay walidaalika waxaan dhalinyarada daa'iman ku dhahaa hadday wax soo kordhaan يعني دائما أهل بلد كاجا يعلمون مركا ماشى جوكتو هلا ويدي وحي مركا ماشى سكجرتو أما داب وباهن تاي بزنس أما هدارت وحين قبستي تدكي وحي قانون كي وحي اسكو أدناي وحي سوالف جناي لو يدي لك قفك لو كافق إلى ويدي سيد ما مركا إن شاء الله تبارك وتعالى إلهي يقرأ كأقبل صون كودا أنا قال إلهي أنا أقبل أجر كدير إن شاء الله وحن ما هذا علينا هرت سيدي ذبح إلهي ما هذا له وحن علينا الشيخ غير عبد السلام وصلت كسكو ضيع إنه أفرك نقل خير قاعد waxaan kaloo mahad u celinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ama gabdhaha guriga jooga ee qeyr ilaah siiya ee waxaan macaan ee cunadan aan dhammaanta ku afurayna soo sameeyey iyagana in maaragtay ajirkooda xasanaadkooda ilaahay ugu saa'ideeyo dhammaan dhalinyaradii iyagana ka qayb qaatay ee ku talagalay markastaba wadajirka soomaalida magaalada inay sii socoto ku talagalay iyagana aad baan ugu mahadinaynaa waxaan rajaynaynaa sabtiga dambe waxaan noo imaan doona sidoo cabaas hore noogu sheegay sheekh muxudiin أوس نوجا إمادونا أوس نوجا إمادونا وحنا وحيد دونا سبتي قدامه شيخ عبد الرحمن وسائل نوجا إمادونا قبل دونا مركب عندك كل سنة سد حدا رمضان نهاري على بس السيد هذي نوجا صعدونا وحنا كل هذا وما هذينا اسمان وسجنا كغيب خاطة يعني سيفها في وعدك رمضان كأيز والله لقى قبته سجن أسي قد بيدك كان إماكن مركب وكما ستي دماتي قصغر قشين رمضانka suxuur la'aanta ka hor haddaad waa macnay adiga aad awoodin inaad suxuurato suntabta ama aad sugi karin baad iska seexato macatarkaa ka yaraanayse sidee noqonaysa maasha allah waa su-aal fiican yani runtii waa walaalayaal طبعا horta waqtiga waa iska yaryahay leanno hadda hadduu qofka iska afuro waxaa laga yaabaa xataa inay yani suxuur uu ku fakeri waayo uuna suxuuranba laakiin su-aasha waxay tahay suxuurta waa maxay qofka hadduu xabad timir cuno suxuur way ma la dhihi karaa jawaabtu waa nacam xabad timir hadduu qofka usoo kaco habeenkii uu cuno waa la dhihi karaa wuu suxuurtay ama koob biyo uu cabo لأن نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه تسحروا سحورته فإن في السحور بركة والسحورته يري سحورته وحا كجرو بركة كجرته بركة نكي دوني وإنه سحورته وإنه حتى آذان ككهر نص ساعة صوت كوب بيئة حبت تمر وعبو وأني يستسحور وحاوي بركة كجرته النبي صلى الله عليه وسلم رواية دي كلام وحي أهد حديث أي علماء القار أي تصحيحيين وإن شاء الله مجمل طرقي صحيح هي وليه إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين إلهي ملائكتي سوحي كسر لنا ينددك سحورته إلهي ملائكتي وحي كسر لنا ينددك سحورته إذا سحورته بركة كجرته نبينا صلى الله عليه وسلم ساسو يري وحاوي بركة كجرته بركة قفك إنه إلهي وسحورته بينك قفك وصوكعه أصدقوا إسلا سنة يا بركة كجار كوبية ولا وعبه هدو حتى أودي ويا حتى أكسر يحذو ودون على هردي إلا تكتو أما أكسر يحذو نيد إنه سحورا لها أكسر يحذو حتى نيد إنه سحورا لها سحورته وبركة كجرته إن شاء الله تبارك وتعالى نعم لكن قفك هدو أنا سحورا صون كيسي كورما صون كيسي صح بقول كي بقول واحد يبقى أو ما يبقى لكن سنة دي سحورته كتجي هي بركة دي سحورته كتجي لكن صون كيسي صح بقول كي بقول إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا بدون دي معاصيك لي وحي أو صون كجميلة يكلون لا إيمان صون كيسي إن شاء الله وصحيح بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم qofkii yani wuxuu sakara oo kale macada sakara galabtii markii la gaaro kale hormar soo noqoto su'aashaas ma la qabaysan karaa buu yiri qofka macnaha mu'minka ah asagoo sooman waa qabaysan karaa laakiin wuxuu iska ilaalinaya kaliya biyaha inay u gaaraan sanka لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحوري بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صندار سجا أد وصندار صدور إلا مركز صومنتها مؤي مركز إذن
qofka uu qabaysan karaa insha Allah tabaaraka wa tacaala min qof shaqo ka yimid ama qof u baahda qabays waa qabaysan karaa daawada ilkahana cadayga inkastuu fiican yahay laakiin daawada ilkaha ma isticmaali karaa jawaabta nacam waa iska isticmaali karaa laakiin wuxuu ilaalinayaa inay wax u gaaraan laanna waa laga yaabaa inay daawadii in yar ay la dhuunta tagtay ima la caloosha laakiin daawada ilkaha qofka waa isticmaali karaa inkastuu siwaaka sunna yahay oo sunnada ay fiicanta in la xifdiyo laakiin wax oo macnaha nahinayo ma jiro daawada iyada lafteeda waa la isticmaali karaa nacam wallahu a'lam diintaadii dhinteen oo soon lagu lahaa ama aadan hubin ma loo soomi karaa culimada qaar waxay leeyihiin yasuumu canhu waliyu qofkii weligiisa ka soomi kara laannu xaqullahi axaqu bilqadaa bay dhahaan weligiigaa ka soomi kara qofkaas bay dhahaan wallahu aclam yani ka soomi karaa bay dhahaan weligaa ka soomi karo maaragtay fadaynullahi axaqu bilqadaa macnaha laakiin qofka hadduu jiranaa uu soon lagu lahaa maalan intuu jiranaa un ayaa laga soomaya laakiin wixii markuu dhintay kadib maalintuu qofka dhintay ayuu kitaabkiisa intaas buu ku egyahay maalan maalintii bishan ramadaan ahayd buu dhintay qofkaas marka ma laga soomi karaa 25 inta ka hartay maya wey sababtoo ilaahayba kama raba subxaanahu wa tacaala laakiin waa maalimuhu jiranaa qofka ma laga soomi karaa bay culimada qaar waxay dhahaan waa laga soomi karaa weligiisaana ka soomaya ayay dhahaan laakiin wixii ramadaan ka dhinayo dhan kama soomaya tabcan laannu qofka kitaabkiisii iyo maalintii uu dhintay ayay camalkiisii meeshaasuu ku egyahay صح aad sida sunnada ah waxaa weeye qofka inuu la bixiyo ma taqaanaa yani zabiibkii iyo bariiskii iyo galeydii iyo inuu masaakiinta siiyo saasaa sunno ah laakiin waddamadan marka la yimid reer galbeed qof maskiin oo wixii kaa qaadanaya ma leh marka axnaafta ilaahay khayr ha siiya ayaa iyo culimmada qaar ka mid a ayaa u iftooday waxay dhaheen dadka way bixin karaan iyagoo qofka lacagta inay anfacayso uu lacag ku bixin karaan ma aqaan ma 6 euro ama 7 euro wax saas sanadkii marka inuu wadankii u diro oo saas macnaha masaakiinta lagu siiyo waa la siin karaa bay dhaheen raxmatullaahi calayhim ama inuu u diro lacagtaas reerkii Soomaaliya wadan kale xukmu zakaadka ma la naqlin karaa oo meel kale la geyn karaa haddii baahi timaado oo loo baahdo oo masaakiin in wadankaas joogin wadan kalena qaar waxay dhaheen waa la geyn karaa oo xagga ku bixin karaa mesela qofkii zakadii Soomaaliya u diraya markuu u diro xagga ayuu qof buu ilzaaminaya wuxuu leeyahay reerkayga waa 7 qof $100 7 qof bariiskii sida sunnadan u waafaqo bariiskii ka bixi wixii soo harna qofkaas uu markaa miskiinka uu qaato uu samayn karaa qofka insha Allah tabaaraka wax walbana waa iska fududeeyeen insha Allah loo soomi lahaa iyo sidii maaragtay looga faa'iideysan lahaa waa jaanis qofka waxa laga yaabaa inuu sanadka soo socdo una gaarin mar walba uu soomo ka inuu sanadkii ugu dambeeyo kala yahay markaas qofku waxay noqonaysaa inuu maaragtay cibaadadii uu sii adkeeyo oo cibaadadii ku sii dadaalay noqonaysaa imise dad baa sanadkii hore aan nala joogo sanadkan aan joogin marka jaanis waa ilaahay ku soo gaarsiiyey la'allakum tashkuruun fadal sheekh waxaa jirta ramadaan oo kale marka lagu jiro xilliga afurta la afurayo صح dad baa jira boosan ahayn صح oo loo diiday boosaynaanay macnaheedu aanay boosan qaadan karin xilliga afurta ramadaankaas maxaa sameynaya qofka macnaha hadduu qaadan waayo macnaha may qofkaas wuxuu sameynayaa jeebka waa lagu ogol yahay 2 xabo timir inuu ku qaato qofka Soomaaliya jeebka inuu gashto 2 timir ah markuu shaqeynayo dharkii uu ku shaqeynayo 2 timir ah ayuu jeebka gelinayaa markaasuu maaragtay asagoo shaqeynaya xabad timir hadduu afka geliyo xanjaday la mid tahay marka soonku ku jabinaya uu sunnaynayaa koob biyo yar uu isaga dhigaya caagad yar wax walba iska fudud yihiin insha Allah may salaada waajib waa salaada waa inuu waqtigeedii salaadii ay haday timaado macnaha soonka xilligii uu gaaray waxa fiican qofka inuu afuro uu marka duceysto uu hadduu marka heli karo haddii waqtiga isku soo aadaan inuu macnaha soonka saan sheegnay timirta uu ku jabiyo kadib uu salaadii maqribka marka tukado marka uu soo horeyso waqtiga insha Allah intuuna ka bixin waa suxuuran kartaa haddii aadaanka 10 daqiiqo ka dhiman tahay laakiin 10 daqiiqo maxaa ku cunay waay maxaa ku gaartaa koob waxa cunay sida ku xiran shin badan 10 daqiiqo ma ku deeqdo marka laakiin 10 daqiiqo xabad timir ay koob shaah ku cabi kartaa ama haddii la adimo ka war adigoo koobka gacanta ku hay soo taas kama darna waxa ka daran adigoo koobki gacanta maxaa samaynaysaa ما waxay dhaheen hadduu koobka meesha yaalo waa dhigaysaa ma qaadaysa laakiin haddaa afka geysay uu afkaaga ugu culimada qaar waxay leeyihiin qofka uu dhamaystiraya dhaqso afurkaaba soo dhow waa iska soo gabagabaynaynaa marka sheekh waa mahadsan tahay idinkana waa mahadsantihiin khayr ilaa anaga wada siiyo waxaa kaloo hayaan noo diyaariyey maanta aan ka faa'iidaysanayna ciyaarihii maadaama ay Holland Netherland ciyaarayso hayaan wuxuu noo diyaariyey TV-gii ma baxeen meeshana ku daawanayna